Shushu Cabdalaahi gabdhihii xamar joog oo caanka ahaay ma aanan arkin way ay xafladaad uga soo qayb gali waayeen miyay ka maseersan yihiin oo jalaska yihiin mis Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada meel walba joogtiin walaalahayga qaaliga ah walaashina Axmed channelka daawanaysiina waayana channel please da channel ku cusubtiin subscribe noo saara hada hor nool joogteen aad iyo aad u maasantiin waa ku maasantiin daawashada aad daawatiin fiidiyoyadeena kuwii hore iyo kuwii dambe waxaan rajaynayaa haddii aadnan horay u arkin janaalkeena oo adinkoo YouTube ka dhex meereysana aad aragtaan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartiin iguna dhiirigelisaan waa ujeediin inaan janaalka wax badan ka maqnaay taasna waxay marqaati ka tahay xoogaa dhiirigelin la'aan inay jirto oo dhiirigelintu ay yar tahay marka walaalahayga qaaliga igu dhiirigeliya inaan asaagayga wax la qaybsado marka aad iyo aad ayaa u maasantihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadha caanka ah ee Shushu Cabdalaahi iyo gabdhaha jooga xamar oo qaarkood ay isku dhaceen iyo sababihii isku dhaceen iyo Shushu Cabdalaahi oo ka shiftay inay isku dhacsan yihiin gabdhahaas mar ay leef saarnay Shushu Cabdalaahi ayaa waxay sheegtay in aysan xafladeedii ka soo qayb gelin gabdhaha jooga xamar sababtii ay uga soo qayb gali weysana aysan garanaynin ayadoo markaas Huda Amuun leef la saarneed oo si leef ay u wada kaftamiyeen bay Huda Amuun war ku soo turtay waxay ku tiri Shushu Cabdalaahi gabdhihii xamar jooga oo caanka ahaay ma aanan arkin way ay xafladaad uga soo qayb gali waayeen miyay ka maseersan yihiin oo jalaska yihiin adiga ayaan u wicin mayso ku dar adiga ayaan u wicin mayso ku darin ee waxay tiri way ay kaaga soo wici waayeen intaas way ay uga soo qayb gali waayeen xafladaadii markay Huda Amuun dhameystirtay intaysan Shushu Cabdalaahi hadlin bay Huda Amuun intay ku laabatay gabdhihii xukuntay maxkamadda u dirtay markaas intii soo bad waxay tiri majalasay ka yihiin masoo ka maseersan way ay kugu soo imaa waay Shushu Cabdalaahi way qosashay markay qosashay kadibna waxay dhahday ma aragtay macnaheedu maxaa waay waa hadalka aad ku hadashay ayaa sax ah marka Shushu Cabdalaahi rabaa inaan su'aashan weydiiyo walaasheedii iga yareeday haddii aad aragtid videogan sida aan arkay gabdho badan oo caan ah oo hadalkaagii ka soo jawaabeen intana aan ii soo saarayo aan ka arka hadalkoodii isla su'aashaas ay ayagu ku weydiinayaan ayaan rabaa inaan aniguna ku weydiiyo maadaama aan noo sheegtay gabdhihii inay imaan waayeen kadibna ay ayaga soo hadleen ilaa bili aadanka social media wada isticmaalna qof walba wuu arkaya wixii qof ku hadlo berito qofka kale wuu arkaya qofkii aan is indha tireenin bal ila daawada videogan ay farxiisoona ka soo hadlayso runto inta aadan gabdhaha Muqdisho aflagaadeelin waxa habooneed fikirkaaga inaad raacisid Shushuey gabdhaha maxaa u casuumo weysay maxaa uga dulbood maxaa u casuumo weysay inaad dhahdid aa ka horeysay aniga farxiyaan ahay xafladaha reer TikTok kuma badni meelaha ma istaagsani bilaash ay igu soo diraysiin aniga TikTok waa iska joogaa maahane reer TikTok uma tirsani sababta ugu tirsanaa idin sheega sagaashan anigu beerta banaadir taagnaa ma karo qofna wax ilama duubto qofna lama duubo kursigaankeyga aan waxaan ka dhihiraba ka soo dhahaa TikTok howlahayga aniga ii qaaska ah leena soo dhigtaa waxaan aniga TikTok inta waqti ku bixi u baxo asxaab meel iskugu taqir wax uma soo duubo taas idinka jaal bixina dadkan TikTokerada ee TikTok isticmaalane horta asxaab kor waa iska salaanaa oo wadaas aragno waa islaana qadirintaas dad walaalahan isku magaalo oo isku leenahay laakiin dad asxaabo meel isku yimaado isla shaaxaysta manihin dadka magaalada Muqdisho jooga ee TikTokerka dad waxa kamid ah
dad aanan ogeyn meel ay igala dagaaleen ee blog isaareen kamid ah meel ay igala dagaaleen ma ogi blog isaareen ayagoo blog isaaran ka war helay ana dushan ka saaray biri haday iga qaadan ay arki maayaan iyagana soo waxa garateen sida aad aragtaanba farxiisoona waxay leedahay anaka mana soo casuuntay haddii aan nahay gabdhihii muqdisho joogay masana dhaxday walaalahaygiyo maantay xafladan kasoo qayb gala garabkayga ayaa tihiin mase anaka waxaad naga dhigtay dad aan waxba ahayn oo yasma ayaa noo soo jeedisay oo waxaad naga dhigtay dad aan waxba wax ay yihiin aysan jirin Shushu Cabdalle sida ay farxiisoonaba ku leedahay way aad u casuumi weysay gabdhaha walaalahaaga ah oo aa ugu casuumi weysay xafladaadii mase xafladii 1 milyan ka ahayd oo qof walba Soomaaliya oo ku saaray oo gabadheena asturan ah ku ahayd oo gabadheena madow aad ku ahayd oo gabadheena aan jecelnaha aad ku ahayd oo gabadheena qosol wanaaga iyo qiimaha lagu yaqaan aad ku ahayd oo intaas aan kugu jecleen oo kugu saarnay yaa qof maanta aan subscribe aan follow ku soo dhihin inuu yar yahan u maleynaa hadduu jirana wuxuu kaaga haysta ma garanayo oo intaas kaaga dhagan yahay marka halkii milyan miyaa habar yar kula noqotay wax aad gabdhihii u wacaweyso shala saaxiibadaada ahaa oo la hadli jirtay oo la magaciisiin jirtay oo la qosli jirtay halkaas milyan miyaa kaala weynaaday oo ayakuba ay ka mid yihiin way aad ugu wici weysay oo dhihi weysay warbalkaalay ii imaada marka aad saas tiraahdid haddii ay ku imaan wayn lahaayeen markaas ayaan dhihi lahayn jalas baa haya wayna ka maseersan yihiin laakiin adiga ayaan u wacan markii adigu aadan u wacan macnaheedu waxay tahay adiga ayaa iskibriyay oo dareemay inaad gabdhahan ka weyn tahay meel kalan oo dheerna aad ka saaran tahay markii aad intaas isdareensiisay baa gabdhihii u wacan weysay mar kalena waan arkay video adiga aa leedahay oo aad dhahaysid xataa haddaan saaxiib la ahay haddaan gabar saaxiib la ahay oo maya haddii aan wiil saaxiib la ahay si kasta ay ahaato ma jecli in ay gabar barato taas oo aan ka wado aad tiri aan ka jeclahay intay gabar kale ah oo wiilkaas bara lahay inuu aniga bas yaqaano u xiriir sameeynin walaaltinimo kala sameeynin bas sidoo aniga ii rawado ii ogaado inaan walaashiis ahay haddii xiriir leeyahana oo kaligayga igu ekaado taas naag walba kula jecel kaliga ma ahan bad midaan kale xoogaa waxa moodaa inaad isisiisay wixii dhamaayo de wiilashii dhinacna aad u ogoleen taas iska badaa qof walba joos uu leeyahay maseer uu leeyahay wax kasta uu leeyahay bandana rabay inaan ku weydiiyo Shushu Cabdalle hadaa maqlaysid mideeda kale Huda Amuuna rabaa inaan wax yar u soo jeediyo Huda Amuunay gabdhahan magaalkii wada joogan ayagoo shib kala ah oo mid walba caloosheeda ku qarsanayso midii la iska weynaysiiyay iyo midii isweynaysiisay iyo haday mid jalas tahay iyo tii jalaska laga ahayba ayagoo waxooda dhan ay u kala qarsan yihiin oo shib kala yihiin way aad iskugu soo feynaysid oo aad u leedahay xilli walba aad u leedahay naagihii way ka masayreen oo waa kanaasaan waayo oo xafladaadii waan ka waay aad u leedahay oo isku sii tusaysaayo hadda ila waa dad magaalada isla jooga wax isla qabsada isla wareega isla socdo mar walba israaca haddii kale is arki karo beerta nabadda iyo meesha isla tagi karo way aad iskugu soo feynaysid oo isku tusinaysid in ay cadow isku yihiin camal ayagoo maanta is salaami lahaa baa dab dhexdooda dhigtay oo biri inaysa is salaamin aad keentay maadaama ay Shushu Cabdalle warkii hadalkii aad lahayd oo aad dhahaysay gabdhihii jalasay ka yihiin laga dareemayo Shushu inay happy ku tahay ee waliba intay ku qosashay ee tiri ma aragtay macnaheedu waxa waaye waa sida aad sheegtaa sax ah camal ma aragtay waa ka hela waay warka aad tiri waa sax waan marka gabdhihii aad saas ku wada tiraado oo saas bari iskaga hormaadinaysa salaam waayaan dagaalkaas adiga miyaa bilaabay ma Shushu Cabdalle bilaaday
ma farxiisoonaa bilowday ma ritaajaa bilowday ma kuweyn habiyaa bilowday mise inkastoo ritaajis la socdeen mase Sumaye iyaa bilaabay ilaa gabdhahaasna ayakana meelkaas way maqnaayeen oo garow iyo meelahaasay joogeen labadaas gabdhood yararka marka dagaalkaas amuuna qayb baa ka tahay gabdhahaas beri intas dagaalaan isku soo fadhiistaan ayagoo maanta waxooda kala qarsanaya aad tiri jealous baa ka tihiin marka saas inaad dadka iskugu soo fayso ma ahayn gabadha walaashaydahay hudaahay midda kale shushu adna lama rabin inaadan gabdhaha casuumin maadaama gabdhuhu walaalaha yihiin daris tihiin isku magaalo degtiin isku meel joogtiin isku beer wax ku duubatiin isku wiilal waxay la wada duubaan ma ahayn inaadan casuumin inaa casuuntay ah marka inta casuunta ay ku imaan waayaan waxaa dhihi lahayn shushu ay jealous laga yahay bad hadda waxaan dareemaynaa xoogaa inaa iska weynaysiisay mararka qaarkood hadalku meel qaloocan buu ka aadaya marka sorry raaliga ahaada inta hadalkayga saasta loo rabay saasta aad soo dhagaysateen raali ka ahaada walaalahayga qaaliga ah videogana halkaas rabaa inaan kusoo gabangabeeyo haddii aad aragtid walaashay shushu cabdullaahi videogaas waa in aad ka soo hadashaa oo aad tiraahdaa dee saasaa jirta gabdhaha waxaan u casuumi waaye saas ama waa casuumay ayakaa imaan waaye si ay shacabka u ogaadaan wixii jira marka waxaan idin leeyahay meel walbo joogtiin bye bye